loo joogaan waxaan rabaa inaan marka lagu yeero martida looga timid gobolka Banaadir aan u yeero gudoomiye aan filaayo inay degmadeeda aad uga shaqaysay aad u firfircoon waa Safiya Xasan Sheekh Ali gudoomiyaha degmada Shibis soo salaamaya gudoomiyaha gobolka Hirshabeelle gudoomiyaha warshiq xildhibaanada saraakiisha dhammaan waxaan idin salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo walaalkay Axmed cali masaarkiisa waa mahadsantihiin Xasan Sheekh Ali aad ayuu mahadsan tahay madaxda gobolka Banaadir caawa way fara badan yihiin maamulka gobolka Banaadir mana ahan fanaankii ugu dambeeyay kuwa kala grid kaydka noogu jira Cabdi Wahaab Booska soo dhawow inuu soo marantay malaha marka mar labaad iyo mar saddexaadba waan u hambaliyeenayaa madaxda qaranka ee meesha fadhida walow anuu siyaasi aan ahayn aan aad darajadooda u kala aqoon misna si guud baan idin salaamaya si gaar ah waxaan wada soconay Cabdifataax Xalane iyo gudoomiye Monica iyo aad waan salaamaya halkaas uga jeedaa iyagoo fara badan dhalinyarta xaggan caawa xaggan aan taagnaa oo dhan si guud baan u salaamaya sida ay u dhan yihiin waxaan islahaa markii aad soo dhawaaqay sacabku way ku tumayaan laakiin ma tumin waxba ma laha caawa heesaha halka marayay horta aan salaamo kooxda magaalada warshiikh runtii maan ogeynba inay fanaaniin joogto laakiin waan ku farxay riwaayad cajiiba bay soo bandhigeen kolba runtu waxaas bay ahayd moogtahay annaga lafteenna haddaan ognahay waxaanu soo diyaarin lahayn riwaayad la yidhaahdo dadkaaga dhinaca ka raac way mahadsan yihiin aad bay mahadsan yihiin waan ku faraxsanahay abwaanka iyo weliba fanaaniinta walaalaha iyo quruxda badan heesihii la qaadayey ee jacaylka ahaa ee dhalinyartu isku baxsanaysay kollay dee anuma qaadayo nin weyn baan ahay iyagaan u daynayaa waxaan idiin qaadi doonaa hees maadaama anigu qurba joogta soomaalida aan ka mid ahaa ama wax badan aan qaxooti ahaa qurbaha iyo dhibkiisa ka hadlaya qurbaha macnaha wax wanaaga oo badani ma yaalin nin ay xaaskiisii ka tahriibtay iyadoo uu bil fiican iyo nolol fiican dalka dhexdiisa uga sameeyey soo arag heesta kalena kaale baa la yidhahdaa dhegaysi wanaagsan waan jeclahay inaad buuxdaan kuna dheeshaan moogta بوسكا انتوا سوداء واحد قال فنان يغالي Kuchuchi,
كما يقول لي هاي ما انت
waxaan
tartamaya haweenkii caawa halkan ayay imaan doonaan gabadha quruxda qaadayso hirshabeelle idinkaana kala saari doona caawa taas waa inoo dhiman yahay tartankii wuu noo bilaabanayaa waxaan rabaa inaad diyaargaro waxaana la ii sheegayaa weliba in caawa xafiiltan gooniya uu ka dhaxeeyo maamulka gobolka banaadir fataax iyo cabdifatax cumar xalane iyo saaxiibkay dalxa حسن معلومة أحمد دري لابو صدع mariye dhankii dhalinyarada caatada ah saaxiibkayna wuxuu maray dhanka raggii marba kusta waxay kaloo noo gaadeen ayuu kabahay siibteen annaguna kabaha ma siiban horta labadaas qodob bay nooga adkaadeen waxaa kaloo intaa dheer saaxiibkay intuu iga ida cuno biladii oo idahu aad u isticmaalaa iyana wuu nooga adkaaday oo mogtahay wankuu guddoomiyuhu sheegayo dee aad u isticmaalay marka taasna waa nooga adkaaday laga yaabo inay dee waa reewarshiiqnimadu inay keentay guushana waa laga yaaba marka aad baad u mahadsantihiin waa mahadsantihiin السلام عليكم waxaa la yidhahdaa ciyaarta labada kama qusliso laakiin mid qoray ka quslisaa waxaan rabaa been karto isaga da'diiga weyneed waaye abtigayna waa yahay afka kuma adkayn karo inaan ka adkaado caawa laakiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxdayda waxaan leeyahay keliya waxaan u malaynayaa kooxdayda inay aad u khibrad badneed horta waa mahad celinaa dhammaantii waa idiin mahad celinaa haddaan xamar ku laabto afhayeenkii ma handudi doono mar ii bootay doono waan ka adkaaday moogta waxaan malaynayaa tartankan hadduu aarsan doono furakaasay ahayd muqdisho markaan tagna tartankan oo kale ku qabsado kooxna ha diyaarsado soo mar labaan iga adkaado kusoo dhammaanayo shukri iyo cali oo kala matalaya laba waaxood oo ka tirsan degmadan warship shii cabdi iyo umulqeer شكري لابو صدع إنه سنقفنا هر نقاقل إنه سنقفنا هر نقاقل إنه سنقفنا هر نقاقل برشيد waxayna kala matalayaan jiija daali oo matalaysa deegaanka ceel macaan ceel cabde cali yaasiin oo matalaya ceel macaan waa ceel cabde iyo ceel macaan jiijo cali yaasiin tiradaan bilaabay koow laba saddex حياتي وبريجو كلها يمشي وبريجو كلها يمشي وبريجو هل هل أيك لين صدوا ساعة صفور
قبل وعاب وحنا الورشة قدوميها قولك الشمال دحه قدوميها ورشة اللي وانا قرنك وزيرك فنانينتا iyo laashimiinta iyo fanaaniinta warshiq iyo fanaaniinta qaranka dadweynaha reer warshiq waa islaamiya habeen wanaagsan malafaya ku fiicanna ani sharaf bay tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladan aadka sharafta u leh si fiican loo soo agaasimay waxaan kale u mahadcelinayaa fanax oo si fiican u xiriiriyay caawa hadday xasuusataan agoosto 24 laba sano ka hor halkan baan imid aniga maasha allah marka sharaf bay tahay laba sano ka hor inaan caawana aan imaado waan ka soo qayb galo xafladda caleemasaarka gudoomiyaha kolonel axmed shiidka maanta markaan imid galabtaan imid magaalada ku soo wareegay xeebtaan tegey waxaan qirayaa oo caddeynayaa labada sano soo dhaafay maalintii hore aan imid iyo maanta in isbeddel weyn lagu sameeyey degmadan maadaas ilaahay ka sokoow waxaa iska leh gudoomiyaha iyo maamulkiisa wayna ku ammaanan yihiin waana ugu mahadcelinaynaa insha allah waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hay-adaha haddaa la sheegay iyo kuwa kale oo degmadan mataqaanaa waxyaabo badan ka qabtay dadka caawinay aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad rabaa inaan hoos ka xariiqo u mahadceliyo walaalkay aan dhehe boogay axmed warshiiq oo reer warshiiq ah soo laabtay gurigiisa yimid wax ka sameeyey meeshaan waxaan ugu baaqi lahaa mataqaanaa dadka u dhashay ama ku dhashay degmadan ama gobolkan inay ku soo laabtaan magaalo kasta waxaa dhiso dadkeeda ayaga ayaa dhiso marka waxaan ugu baaqaya in la soo laabto mar kale waxaan dhihi lahaa warka ma badinayo waqtiga waa waqti dambe waaye gudoomiyaha u hambaleynayaa waxaan rajeynayaa guul reer warshiqna waxaan leeyahay bashbashi buraaq insha allah waa mahadsantihiin